maanta waxay idin wadaa walaashin qaybtii labaad oo loo sameysanayay sareenka si fiican aan u dhaqay biyaan la dhigay maasha Allah hore maanta waxaan u sameysanaynaa qaabka bariiska camal marka insha Allah halkan waxa ii yaala alaabo tiro badan laakiin qaabkan u sameynaa insha Allah waan idinka dabageynayaa insha Allah halkan waxaan ku haystaa looskan oo biyo kulul ku shubtay oo qolofta ka soo saaray waan shiilayaa halkan waxaan ku haystaa sabiib ayadna waan shiilayaa halkan waxaan ku haystaa basal waan shiilaya waan ka gurayaa insha Allah halkan waxaan ku haystaa kaarooto aan saas u soo dhoodhoobay soo jeexjeexday waan shiilaya isagana halkan waxaan ku haystaa paprika ama barbarooni qof walba sidoo u fahmayo saddexdeeda nooc halkan waxaan ku haystaa yaanyo ama tomato qof walba sidoo u fahmayo oo soo shiitay marka insha Allah halkan waxaan ku haystaa xawaajiyo qof walba gurigiisa uu yaqaan waxa yaalo maraq digaag kamsar iyo toon isku tuntay iyo xawaajiyada guriga ii yaalay maasha Allah marka hadda waxaan ku horeysiinayaa sida way ii kululaatay saliida hadda waxaan ku horeysiinayaa looska حرارة واحد الجولد إنه قبل لوسكو مركي سهرة واساس ولا لهاي بيكلوا البان لدقي قب كاسرة أيان كقاضي مركي إن شاء الله ساس ولا صحبة إن شاء الله لوس كمركا ربنا عانو قف كده بكسميسن كرا inta biyaha la dhigo oo ka qaado qofka sare ayuu ka bacdina yeesho qofku ku darsanaya laba galaas caana haduu rabo adigu laba bakeeri wuxuu ku shubanayaa laba galaas oo biyo ka bacdina wuxuu gelinayaa mishiinka qofkii rabo oo shaandaysanaya qofkii rabo qof yar iyo malab ku darsanaya si uu ku cadeeyo insha Allah علشان waa caana caafimaad loo natural ah بسم الله اللهم العذاب يا رب العالمين اللهم امين يا رب cuntada qofkii barto ma sha Allah iskama qabanaayo waxyaabaha naturalka ah oo qofka caloosha istaagaynin oo ciladii nagu keenaynin oo healthiga leh ayaan insha Allah mar walba idin kula dardaaraya mar wixii calashaan ama macaan oo maxay heelaanay haday wax macaan ka qabato hadii ay hal mar wala iska dhaxgashtaa midna hilibka oo kale ani inta badan chicken ama waxaan isticmaalaa ama malay okay hadda saas oo gold igu noqday waxaan ku dararsanayaa sabiibka بعدنا وكسر يا
zabiibka calashan hadduu sii gubto qadhaadh buu noqonayaa bilaa dhandhan uu noqonaya marka mar raba inuu iga gubto degdeg waa inaan uga guro kamarada aniga kaliya haysto marka waa kaas halkaas ku gurtay softigaas oo iga baxo ii sheeg hadda waxaan ku xujisiinayaa basasha walaalahay ma sha Allah mar raba inuu fiidiyooyinka ku dheeraado ku caajistaan marka kullu saas intaan tusay kullu saasna u soo wada shiilaya marka saas soo wada shiilo dhameystiro wada tusay haddana iyo qaabka hadana burqulka aan sameeyay insha Allah ama sarreen ka qaabkan u sameeyay haddana aan hadan dhaho basashu intay gududanaysa sugaya kaartuga intay shiilmayso waqti qaadanaysa marka mar rabo inaad booran dareentaan niimiyadu waxa weeyaan inaan wax yar oo nafteena caafimaad u leh cunto yar oo health ka inaan isfahansiino marka insha Allah ila socdo walaalahay ma sha Allah way dhamaadeen karootadii waan iga soo shiilay waan soo shiilay barbaroonigii sidoo kale basashii sidoo kale marka hadda waxaan basal yar oo kale aan ku googostay way ii gududatay marka hadda waxaan ku darsanayaa yaani yaanyadaan ku darayaa ka bacdina waxaan ku darayaa xawaajiyadii iyo maraq digaagii ma sha Allah ma sha Allah okay waxay rabaan isku huraan إن شاء الله طبعا كان سهرنا يا marka halkan waxaan ku haystaa digaag biyo yariisan hufkusiye wax yar si bakteeriyada xasoo dhimata biyo khalle ka bacdina xawaajiyadii waxaan haystay iyo maxaa la dhahaa ayaan soo marmariyay iyo soya sauce yar aan ku soo daray soya sauce qofkaan fahansanayn sanay u taalaa waa taas waa xalaal taasna ma leeyahay arkaysaan xalaal waaye ma sha Allah sabta iyadoo tira badan waxa jirto aan xalaal ahayn oops soya sauce yar baan ku darayaa ma sha Allah maana iyadoo ii shiidan tahay ka bacdina waxaan ku darayaa borqolkii ama sarreenkii si fiican aan u nadiifiyay ma sha Allah ka bacdina biyaha dheecaanka yar hoos ku jira waxaan rabaa inuu dhameysto oo ii shiilmo hal mar si fiican marka daboolka saaraya ma sha Allah biyihii wuu dhameystay oo gudaha wuu shiilmay marka hadda waxaan sameynayaa biyo badan kuma darayo wax yar ayaan ku darayaa
intaasan ayaan rabaa inaan biyo uga dhigo. intaasaba ku badanba. Okay, marka hadda waxaan sameynayaa afkaan ka xidhaya. waxaan rabaa laana halkan ma raba inaan ku kariyo, waxaan rabaa inaan ovenka geliyo qaybta hoos. marka insha Allah ila socdo. masha Allah. marka hadda waxaan soo qaatay bacdan laana dabka waan ka damiyay. warqadan aan soo qaatay waan saarayaa halkan. kabacdina waxaan ku sii kor xirayaa alamiin. halkaas ugu xirayaa masha Allah. okay, marka hadda waxaan sameynayaa daboolkan ayaan saas halkaa u saaranayaa. daboolkaas halkaa markaan saarto hilibkan ayaan halkan saaranayaa. waana inuu ii shiilma rabo. masha Allah. masha Allah. marka inay qofinka iga wasaqayso wax kala baxay. saliid yariis oo liifa yar ayaan ku darayaa. marka waxyar ana digaagu ma leh wax saliid iyo waxaas. intaas ma rabo inaan ka badiyo. kabacdina hoos ayaan ovenka furayaa. ovenka ayaan gelinayaa. insha Allah. marka sidoo ku soo baxo haduu ilaahay waan la wada soconaynaa insha Allah. ila socdo. digaagaagi waa kaas u saaranaysa masha Allah. marka walaalahay ka faa'iideysta. waa cunto caafimaad leh. Rabadaan baa soo galaysa. cuntadan qofku ma gaajoonayo maalintii oo dhan. laab dilaac iyo wax ma dareemaysid. waa masha Allah. waa cunto healthy. marka insha Allah walaalahay ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwii ka faa'iideysta ha inaga dhigo. khayrkan Allah ina soo xijisiyo. aad iyo aad baan idin salaamaya. maanta fiidiyada intaan ku soo koobaya. marka casho wanaagsan qada wanaagsan qof walba say u tahay. السلام عليكم ورحمة الله.